ninka hadda madaxweynaha la soo doortay horta wareyntii hambalyo baan u celinaynaa saan sheegnay wadankan asaga ku guuleystay marka hadalku maanta uu joodi ani waxaan u arkaa inta soo qaybood wareyntii horta wuxuu cadeeyay sida ogsoontii wadankan sida xorriyadu u qaatay dadka madaxtooyada ka noqday waa dad amaba la soo koreen amaba kamid ahaayeen qoysaskii magacaha dheer lahaayeen oo halkan looga garanaya yani dynasty yani magacyo weynaa marka maanta dadweynaha wuxuu sheegay nin kasta oo family kasta oo Kenyaanka ka imaada inuu wadankan amaba madaxtooyo ka noqon karo amaba madax ka noqon karo wadanka tan labaad wuxuu dhiirigeliyay dadkii la soo istaageen amaba noqdeen wakiilaha yani abukaatiyaalka ama noqdeen dadka kale oo political scientist ama dadka kale oo xildhibaanaha marka taana mahad buu celiyay tan kale oo saddexaad wuxuu sheegay inuu wala xiriir uu la yeelan doono madaxweynaha hadda baxaya uuna kala wada sheekaysan doono si tartiib ah oo lagu hagaajin doono maamulka wareejintiisa taasna waa dastuurka wadanka ay kamid tahay tan kale oo afraad wuxuu sheegay in isbedel weyn uu keeni doono oo la arki doono bilaha horeeya tan kale oo shanaad wuxuu sheegay inuu diyaar u yahay waqti kastaba sidii ay ku sii gaahiri lahayd ama ay ku sii kari lahayd dimuqraasiyalka wadankan ka jirta tan kalena wuxuu cadeeyay inuu geli doonin wax oo amaba shakhsiyan raasi ah ama wax dadka dhibi doono oo shaqadiisa ay noqon doonto horumar iyo siyaasad guud oo wadanka uu soo keenayay haddii marka maxkamaddu ay si rasmi ah ugu dhawaaqday natiijadii murankii doorashada la xiriirtay ee labadii musharax Ruto uu madaxweynaha noqday idinkuna Soomaali ahaan intiina badan waxaad taageerayseen isbahaysiga Azimio musharaxii taageerayseen waa uu guul daraystay marka maxaa idin la gudboon xiga wallahi ma jirto Soomaaliya ay ku qaybsaneed boqolkiiba aan dhaha 60 Azimio baan dhisayeen boqolkiiba 40 ama ku dhow waxay dhisayeen dhinacaas kala marka wadankan waa wadan dimuqraasi ah doorasho way imaadaa 5 sano kadib waana laga tagaa marka waxaan filayaa tii wareysana maaha waxaan filayaa wadankana sidaas uu ahay cid kasta ay ku kala qaybsaneed qaybna dhinacan ay dhisayeen qaybna asaga ay dhisayeen marka waxaan filayaa wadankan maamul buu leeyahay dastuur buu leeyahay ninkastana dastuurkaas uu hor imaada marka wax Soomaali ama dhinac u ah ama cidoo dhinac u ah ma jiraan wax dadku soo wala keenaya waa maamulka dadka maamulkana waa dastuur taasoo ninkastana hoos imaada marka waxaan filayaa Soomaalida amaba qoysaska kala doorashada irida kala duwan ka ciyaareen inuu ninkastaba diyaar u yahay sidii dawladda loola qaban lahay wadankana horumar ku gaari lahay marka madaxweyne Ruto xilligu ololaha uu ku jiray waxyaabihii uu ballan qaaday waxa kamid ahaa in gobolka waqooyi bari gaar ahaan Soomaalidu oo xuduudaha oo kale uu furayo dhinaca Soomaaliya isu socodka ganacsiga iyo arrimo la mid ah dhinaca horumarka marka arrimahaas uu ballan qaaday sidoo uga dhabayn lahaa idinku kaalin ma ku lahaanaysaan ganacsiga waa qayb muhiim ah maalintu arrimahaas ballan qaaday kulli xuduudka Soomaaliya ay Kenya oo xirnay jaadka oo xirnay haddana doorashada dhexdeeda baa jaadka la furay transportka oo diyaaradahana waa la furay waxaan filayaa qaybo badan ama Madeira noqoto ama ama Garissa ama Lamu football ka jira inay wax xuduudkaas ku xisaabsan qiimaha customka ama maamulka kala oo becsharada oo labada wadan uu soo keeni kara oo ilaa hadda aan shaqeynaynin inuu shaqeyn doono marka waa mid uu ninka wadanka Kenya uu u baahan yahay Soomaaliya oo u baahan tahay raacida labada dhinac waa u baahan yihiin sida ogsoonta hadda wadankan wuxuu ku dhisan yahay becsharana lama heli kara ilaa oo xiriir wanaagsan uu ka dhaxeeyo wadamaha iyo dadweynaha degan labada dhinac marka taa waxaan filayaa inay noqon doonto arrinta ugu muhiimsan dawladda cusub ay ka shaqeyso ilaahay diira muddooyinka hadda u dambeeyay adigu waxaad ka mid tahay xildhibaanada muddada ugu dheer dalkani Kenya xildhibaanka baarlamaanka Kenya ka soo ahaa dawladda ayaad soo hogaaminayseen xisbigiina ayaa inta badan wadanka hayay haddana guul darro haddii aad kala kulanteen doorashadii ma mucaarad baad ahaanaysaan marka wadankan waxaa jira kuwa xukuma iyo kuwa ilaaliya oo waqti kastaba fiiriyaan sida xukunkaas ugu socdo yani waxaa la dhahaa responsible opposition mucaarad marka anaka mucaaradka baan ahanaynaa yani mucaarad u hoggaansan dastuurka wadanka oo fiirinaya dawladda meesha ka jirtay inay maamul wanaagsan si dadweynaha ay isku keen lahayd ka shaqeeyay marka anaka mucaaradka baan ahanaynaa dawladana wixii wanaagsan oo dadweynaha uu soo keenayso basgacan ku siinayna waxaan qalad u aragnana waxaan leenahay halkan qalad weeyaan waaye ugu dambeyn marka Soomaali ahaan adigoo marka xildhibaanadii Soomaalida gobolada Soomaalida laga soo doortay kamid ah maxaad ka filanaysaan marka Ruto inuu gobolada Soomaalida uu qabto si gaar ah horta ogsoonta ninka xiriir dheer si wanaagsan baan u garanay waqti baan isla kaan soo doortay sanadka 97 yani 1997 yani dhalinyarada ku amaarmaanka soo garwaan niman garanaya waa nin wanaagsan waa nin wax badan fahansan Soomaalida dhan badan la soo dhama waxaan filayaa gobolka oo Soomaalida amaba xoolo dhaqatada dhan baan dhaha inay horumar gaari doonaan wada signifkiisa xoolo dhaqato weeyaan meesha ku imaado waa dadkaas baday waa dad xoolo dhaqata dhibaatada qaybtaas ka jirtana uu fahansan yahay nin banaanka ka imaado dawlad ku cusubna maaha waa nin dawladda muddo dheer ku jiray soo baarmaan u soo galay dawladna fahansan marna mucaarad noqday marka waxaan filayaa horumar guud iyo isfahan cusub inuu qaybta dadka xoolo dhaqatada ay degan yihiin loo geysan doono horumar cusubna la arki doono ilaahay diira